that leave be given to bring in a bill to require His Majesty's government to recognise formally the Republic of Somaliland. وكعبسنا يابا تلفين كيس شن كنا شرو صاغ برايا أريا ورد الوزاري إنجليز أربعة وعي كرا أرتلا موعة أركدا دولة الكيجي ولا كالجوجين أيو مرغاتك أو في رسالة يي مسؤول كيين مغال كان أتصدى وتين وبرلمان كإنجليز كأكشري كسري سومالي اللانين أيو أقون صدان دل سوماليا كمدح بنان بل إلهي بان كوغو دارشي مدح كهلا يسماركتين رئيس الوزراء كهلا يماركتي مدحوينه كهلا يماركتي وردالك النجي أيا سلا دون كوكلا قايبينيا دولدان كور رئيسي سيدان سلاك أيا بارلمان كدبعانين حلدبانا إنو هوركينو موشين كان والله دولدي joogtay markaas baa kala furfurtay oo kala diiday oo inta baarlamaan ka mooshin ku soo gaarin ayaa la diiday maanta waxay maraysaa in halka baarlamaanka Ingiriiska si official loogu codeeyo Somaliland madaxweyne ka hadlaya maadan arkin ra'iisul wasaare ka hadlaya ma jiro xildhibaan ka hadlaya ma jiro macaada alle ayagii baa la isku diray ayagii ayna Cabdirashiid iyo ninka la yiraahdo Cabdiwali Gaas markay garow tagaan xagga waxa looga wacayaa Sheekh Shariif iyo hebelka loo wacayaa وأيجي على استوسي أيجي بس فعليا حق متشوجا دو نوسو ككلا ونوسيا وريلا هيبان كوجودر شو وردت كارو جاي سودان دت كمان تحيل كنوها يوان نوعه دولة دان كوريدي حيتا حرير كيو شرلد وحي كوجود دي إنجليز كموشين كادي لورجيو إني حرير كوجود دونتو حسن مكون يرى كراماتي حيتا ما ولا انت الرئيس الوزراء انجليز كوعو انو يرى وروحاس معقول ما هو ذا كلتها والله هذا ما اوده تبرتها ملأ عقلها ملأ وكعبسنا يابا تلفين كيس شن كنا شرو صاغ برايا اريا ورد الوزراء انجليز اربعه وعي كرا ارتلا موعه اركدا ودنهاس بولايا لكن سوماليغا كلا اودو ليا سياسة dadku ma fahansana adigu waxaad iiga jawaabtaa markii ina Cabdirashiid iyo Ninkii Cabdiwali Gaas ay garow tageen sababta Sheekh Shariif iyo Waare madaxtooyada looga casuumay ar iiga jawaab halkaas comment-iga igu soo qor waa dabaaq waa jawaab ay u tahay garow u tahay dad marka iyagu saasa madaxda dhaliisa isku fiirsanaya ee dal iyo dad midna aan tabar weyn ee kala jeclayn Somaliland ayaa shalay waxay soo saartay dawladda Soomaaliya xiriirka u go'ay doonto sababtaasuna ay tahay madaxweynaha Soomaaliya ayaa kowdu luuliyo wuxuu ka yiri calankii waxa laga tagay laasacaanood inta baan ugu jiraynaa xiriirkeedeen xitaa waa raganimo wallahi waa raganimo war madaxweyne maahan war waxaanu dawlad maahan war Soomaaliya ilaahay ma taqaanaan kuwa meesha waxay iga soo dhigi doonaan qabyaaladaysan oo calooshu buuxdo oo qashina ayaa halka waxay iga soo dhigi doonaan war dawladda ka leexo maxaa ka leexdaa dawladda dalkeeyii oo la kala gogoynayo marqaati ka oo fiirsanaysa yey mas'uul ka yihiin dalka soo mas'uul ka aha soo iyagu ma hadlaan soo iyagu madaxdii ma ka hadlaan ma diidaan ma mudaharaan la dhigo ma shacabku kaco maxaa la dhawranayaa waxaan fiirsanaa marka waaye inta si official loogu dhawaaqi doono in Somaliland ay Soomaaliya ka go'day oo Ingiriis ku dhigi doono oo Mareykan ku xiji doono oo Afrikaan ku xiji doono oo anagu waxba kama qaadi karnaa noqon doonto masaas baan dhawranaa ma dhawran karnaa saas madaxda dawacaankaas waxa aad ka sugaysa maanta madaxda maanta joogta ee inta ka dhidhila ee inta ka hadlila ee iyadu isku weyn ee iyadu wada murantaya ee iyadu wada dagaalantaya hageed geynaysa war madax waxa la rabaa dadkeeda u jilicsan war madax waxa la rabaa dadkeeda u jilicsan oo adduunka awood u leh madax iyadu awood isku leh lama baana war dawladii ka horeeyay wax ka baro casharada dawladii ka horeeyay soo qaado taleefana u dir maxaynu sameeynaa la tashi sameey adigu qabowba tahay qashin ba tahay dawlad ma taqaanid maamul ma taqaanid waxba ma taqaanid ma ku dhawranaa marka waaye maan ku dhawranaa miyaan dhawra karnaa saa Soomaaliyay ilaahay baan kugu dhaariyay adiga Soomaaliga ay daawanayaan kula hadlaya muuqaalkan maantay Xasan Sheekh Maxamuud iga gaarsi codsi baan ku dirayaa dawladda maanta jirta iga gaarsi haday dhiig Soomaaliyeed kugu dambeeyo way hadaad biyo tahay oo Xasan oo kala tahay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ma wacnaa waxba muuqaalkayga shargareen laakiin Soomaalinimo haday kugu jirto muuqaalka dadka oo quseeye ee aan la hadlayo iga gaarsi war Soomaaliyay
والصومالية مدحميشن وما تشوكتوا وين أنا كتشنا والله وبالله وطلع إن بين دي شيئين ما أنت كور مجمع أنسان دولة ما أنت ترتين المعارضة هل كقلبا كم معارضة وعوية هذا الكوا هيلو dalka madaxbaad ka tahay gees haduu ka qiiqaayo waa inaad ka hadli kartaa dalkaadiiba cadow kala googooynayo waxaan hubaa boqolkiiba boqol heshiiska baarlamaanka mooshinka la geynayo in dawladda federaalka wax ka ogtaaba inuusan xasan ka hadli karin hortiisa in dalka lagu kala googooynayo soo fiirsanaya telefishinka ka daawanaya sidaan anigu u daawanayo ayuu isaguna u daawanaya kamar hadli karo anigoo kale kaya qofka noocaasa iyo dawladda noocaasa ee aan awoodin inay wax kala xanibto ama wax kala xallido ayaan dawlad maantay anigu go'aankii wuxuu yahay laga bilaabo maantay dawladda xasan sheekh maxamuud ma taageersani waa ka soo horjeeda hadday ka hadasho oo maanta ay ka dhiidhido sida jirku u damqanayo u damqado waa taageeraya wallahi beenidi ma sheegayo laakiin saan ma taageeri karo horta yow madaxweyne u yahay xasan sheekh maxamuud war qolo waraysa kartaa ma jirtaa qolo weydii kartaa ma jirtaa yaad madaxweyne u tahay ma taqaanaa intaad madaxweynaha u tahay qolo dhigi kartaa qolo iisa weydii kartaa ma jirtaa ma yaqaanaa ninkan horta ma sheekadu mariyay la tahay ma iska dhex dhoocaanaa meesha ma iska taagan yahay mase wuu yaqaanaa madaxtinimada iyo dowladnimadu waxa ay tahay war dalkaas Soomaaliyeed baad u dhaaratay kitaabka markii gacanta lagu gelinayay waxaad ku dhaaratay dalka iyo dadka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ku dhaaratay inaad maanta daawatid marka midnimadii la dhaawacayo oo dad shisheeya dhaawacayaan qoday iyo xiraday iyo ilkay aqalka wixii laga sheegi jiray banaanka yimid ummadda kugu taageeri doonta ee qabiil kugu taageeri doonta ayada u taala anigu qabiil shamayuu baan leeyahay Soomaali baan ahay dalkayga wallahi aniga kaba yara oo aan xiliyayna xanaaqsan waxaan ka xanaaqsanahay in Ingiriisku maanta uu baarlamaankiisu ka shirayo oo aan laga jawaabayn oo aan awoodda lahaa telefoon aan taa u diraan ila joojiya laakiin mali kii meeshii fadhiyana wakaasa aad iyo aad bad muuqaalkaygan maantay wuxuu quseeyaa dawladda federaalka oo ku socda xasan gurguurtu ku socda ninka qabuuraha iska faaganaya ee hantidii dadka dhacaya ee ninka halkaan ka wada dhaay musuqmaasuqa la dagaalama asaga la hadlaya war xasanow dalkan ala u dhaartay waxaan ka codsan lahaa dawladda adiga ka horreeyay xasan cali qayre iyo farmaajo inta la xiriirtid weydii sida dawladnimadu tahay 10 ka baro ayagu waxay ku dhahaan uun samee baan ku leeyahay aad iyo aad badnaatay Soomaalinimo hadii kugu jirto oo aad dalkaada jeceshahay oo aad muwaadin Soomaaliyeed tahay muuqaalkan dad badan oo Soomaaliyeed gaarsii say uga dhidhiyaan qof kaste oo awood ku hadla leh qof kaste oo hadli karana waxaan leeyahay arrinkan yaanan sahlanin maanta maalin aan ahayn ka weynaa doontaa aynu ka dhidhino aynu ka hadalno adigu hadaadan awoodi karin inaad hadashid walaalkay waxa aad awoodaa waa inaad muuqaalkan share garayso meel fog gaarsiinid waa haambay aan qaadno dagaal aan qaadno social media dalkanaga dawlad ma jirto dadna ma jiro madaxweynena ma haysano annagu waa inuu isku tashanaa